بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعة مباركة. الحقيقة حلقة عنوان كيدو وحوية SSDF أوكوبيا UNC أوكوبيا SBM أوكوبيا ayaa shalayto war ka soo saaray magaalada Nairobi. warka magaciisa waxa la yiraahdaa mustaqbalka Soomaaliya. xalqada cinwaankeedu waa ka alxaqiiqa Soomaaliga opposition-ka ah dalka gudihiisa ayuu ka soo saari karaa warmurtiyeed dhaliili karaa dowladda dastuurka u ogol. hadday nimankaasi warkii shalay ay ka soo saari lahaayeen Soomaaliya taageero badan bay heli lahaayeen, laakiin warka waxay ka soo saareen dal dibadda ka ah Soomaaliya oo masaalix kale Soomaalida Soomaaliya. arrintaa looma bogin. waxayna dhaafsiisan tahay Soomaalinimada. والقضبك انت سانكودا في الحقيقة. دولة كينيا ملك الدعم يسميس وحبيك أوجيد شركة معارض أي كوكب صدين كينيا كان صارين والمتياتكي لما قعب حي مستقبل الصومالي. وأنا قلت رأيي مرحبا سيدات هاي عرفي الدبلوماسية ديد ميل بي كقدعين تلاتوريال كي سوفرنتيجي يجي ميل بي كقدعين درسني مادي ميل بي كقدعين wixii ay dawladdu federaalku ay ka yeeshaan sugaya. laakiin aniga waa ii caddahay inaad shabxadan noo abuurteen. shay caadi weeye. shalayba Ethiopia noo abuurtay. magacyada ay la baxeen iyo magaca ay kuwa shalay la baxeen waa isku wada mid. قضب كان كينيا إيجارسية الحقيقة. حقوقال بدن أمئه لكن وحن أجهي مدحدة كينيا إيه مدحدة الدولة الفدرالك إيه أحمد مدوبي إن وذا هذا اللي السعودية وأي دولة كينيا سوماليدا مدحدا كأ NFD شوكتا أي قدودين كأهاي دولة فترة كوي أقبش مدحوينه نووكو دواقعينو كسماية تقايو لما يهوحي آد ودين مشرقول بيهايين مش daacad bay idinka ahayd. hadday daacad idinka ahayd dee waxa shalaytoo lagaga dhawaaqay Kenya ee Axmed ka mid yahay ma dhaceen. laakiin dee waxaan u qaadanayaa malahayga waxa aad daacad kama aydinaan ahayn. laakiin waqtiga iyo ayaamaha soo socdaan u dhaafaya oo u deynaya wayna caddaan doontaa. qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa. si weyn baan uga warqabaa inay
kenya ay gacmaha kula jirto suudaan de annagana waa taa maanta nagu darsatay. waxaan kenya leeyahay caqligeennu ha shaqeeyo. soomaaliya waxba dhulka kama yaalin. dowlad idinkaa ah, idinkaa law and orderle, idinkaa dhisan, annagu ma dhisnin. idinka yeeli mayno xadgudub, idinka yeeli mayno gadaro. waa inaad garowshiya ka bixisaan wixii shalaytoo ka dhacay nairobi. shacabka soomaaliyeed wuxuu u arkaa inaad si qoto dheer noo soo farageliseen. war qodobkaana madaxda kenya soomaalida ayga gaadhsiiya iyo kuwa madooba. qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa. ummadda soomaaliyeed baan rabaa haddaba inaan la taliyo oo dee degalay wax maqal baan leeyahay. jabhadi waa 91 bay soomaaliya burburisay. intaasoo magac bay lahayd UNC mustaxiil, UNC Roma, UNC meel kale, waka wada estaa midhan bay ahayd. faa'iidadeedii maanta waynu haynaa, waynagaa baaxaa degaynaa. haddaad jabhad cusub u baahan tihiin, sida aad maanta tihiin si ka foolxun baad noqonaysaan. haddaadse tiraadaan warnaga jooga, dee way joogayaan. maxaa yeelay taageero heli maayaan haddaana idinka helin. qodobkaana intaas ayaan ku dhaafaya. nin moogii ha ogaado. war aniga iyo xasan sheikh abeesadaanu kala goosannaa. ninka difaacaya ma ahi. waxa aan difaacayaa dowlad doon baan ahay. qaran dhaama kii dumay baan raadinayaa. intiina warmulkiyeedka soo saartay waad isoo wada xukunteen, dalkana waad xukunteen. aqoon iigu kiin dhiman garan maayo. xasan sheekhna waa markii labaad oo xukumo dalkoo aqoon iigu dhimani ma hadhin. nimanka wasaarada isaga u ahina aqoon iigu dhimani ma jirto. laakiin waxaan ahay nin samraaya oo aaminsan mar baan dowlad soomaaliyeed oo wanaagsan heli doona haddii ilaahay cimriga ii daayo. war qodobkaana intaasaan ku dhaafayaa alxaqiiqa. waxaa warmulkiyeedka ku jiray meesha marlabaadka lagu shiri doono ma aanay sheegin. kuma qorra warmulkiyeedka. ma kismaayaa ma garoowa. waxay ugu qori waayeen, anigu waan garanayaa. dadku intooda badanina way garanayaan. laakiin waa soo bixi doontaa. waxaana lala sugayaa kulanka axmed madoobe iyo madaxweyne xasan sheikh. mar hore iyo mar labaad iyo mar saddexaadba anigu waan sheegay inaan axmed madoobe timihiisu meel u xiirmin. inuu masiibooyinka dalka ku habsaday ka mid yahay. mar walba waan sheegay. waa dunuubtii soomaaliyeed baa axmed madoobe yahay. qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يا رب العالمين.